xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya waxa ku nool qaxooti Soomaaliyeed oo tiradiisu kor u dhaafayso 200 oo kun oo qof oo qaarkood ku dhawaad 30 sano ku noolaa xeryahan oo la aasaasay markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991. dadka ku nool xeryaha Dhadhaab qiyaastii 65% waa dhalinyaro ku dhashay xeryahan waxna ku bartay oo aan wax aqoon u lahayn dalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ee Soomaaliya. khilaafka soo ifbaxay ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kama aanu farxin qaxoontiga ku jira xeryaha Dhadhaab oo qaarkood sugayaan in dibadjin loogu qaado dalalka dibadda, kuwa kalena ay ubadkoodu ku jiraan waxbarashada bilaashka ah ee xeryaha Dhadhaab, halka qaarkoodna aanay weli ku qancin inay dib ugu laabtaan gudaha dalka Soomaaliya. inkasta oo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xeryaha Dhadhaab ay abaal weyn u hayaan dawladda Kenya oo ay marti u ahaayeen tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya, haddana qaxootigu ma qabaan inay isku xiran yihiin joogitaankooda Dhadhaab iyo ilaalinta dhulka iyo khayraadka Soomaaliya. magacaygu waxa weeye Maxamed Yuusuf oo ku nool xeryaha Xagardheere. rabaa inaan ka dhibta aragtidayda arinta khilaafka soo kala dhex gashay Kenya iyo Soomaaliya, ayadoo aan cabsi ugu jirto mahmaaba waxay tahay idaa kunta qariiban kun mutaadaban. hadaad qariib tahay edab yeelo, anagoo marti ah oo dalka Kenya marti u ah, haddana inaan ka hadalno aragtidayada waan u baahanaa ku saabsan oo ku aadan khilaafaadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya soo kala dhex galay. aragtidayda anigu waxaan leeyahay Kenya iyo Soomaaliya, Kenya ayaa khaldan. ayadaa sheegatay biyihii iyo baddii Soomaaliya, taas oo ay sabab u tahay dawlad la'aanta iyo awood la'aanta iyo waxa weeye mataqaanaa cid maanta ka ceshato aan ka jirin. ayada keliyana ma ahayd, caalamka oo dhan baa Soomaaliya soo wada dawaaciyay. kuwa maraakiib bay keensadeen, kalluunkii bay gurtaan, kuwa khayraadkii bay u hunguroodeen, kuwa haddii ilaahay ma reer bacayo yaa kula xajad waa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aniga Ismaaciil Cabdul Warsame ku nool xeryaha Dhadhaab Xagardheer ah. riyahanteed waxaa meesha ka leeyahay Kenya iyo Soomaaliya xiriir ay u dhaxeeyay, xiriirkaas ahaa macnaha inay wax wada qabsadaan, inkastoo ka dhaxeeyay wada shaqeyn iyo wada qabsi, laakiin waxaa leeyahay Kenya way ku qaldan tahay hadda Soomaaliya inay macnaha qayb ka qaadato, because Soomaaliya dhulkeeda qof kasta dhulkiisa xaq u leh, lama horaan dhulka hooyo. marka inkastoo aan ku noolnahay ayaga wadankooda aan qaxooti ku nahay, sin la wada galina ugu noolnahay, waxna dhibna kuma qabno, laakiin dhulkaas oo hadda la haysto oo qayb laga gatay anaga xaq u leh, waa dhulkeena hooyo. dhulka hooyana macnaha ma jeclin in macnaha la bilqaysto, maadaama anaga qaxooti nahay, birka mal wadagnaga ku dhismi kara, mustaqbal u baahannahay, horumar u baahannahay, waa meesha ka shaqaysan lahayn. haddii macnaha maanta gurigaaga deganeed qayb laga bilqaysto, waa ku saxantay inaa macnaha aad soo dhacsato soo ceshitid, laakiin hadda anaga Soomaaliya ku saxanta macnaha meesha laga gatay inay soo ceshitaan. magacaygu waa Maxamed Warsame Caagane. waxaan ka hadlayaa hadal yar ka hadlayaa arinta Soomaaliya iyo Kenya, arrimaha dhex yaalla oo maalmahan hadalkooda la wado ayaan in yar ka hadlayaa. laba dawladood darisa wada Kenya iyo Soomaaliya, laba dal oo xushmo iyo wanaag kala mudan weeye, laba dal oo wanaag weligood ka dhaxeeyay weeye, xumaano aan dhex marin. waxaanu leeyahay horta marka koowaad waa inay wanaaggii iyo xushmadii iyo sharaftii ay mataqaanaa awal soo hayeen soo celiyaan. midda labaad, Soomaaliya waa kuftay, hadday kuftayna kufidii waa ka soo noqotay. Soomaaliya dhulka ay leedahay weeye waxa ay mataqaanaa ama gadatay ama ganacsatay ama baaratay. dhulka ay leedahayna cid ku farangelin ka dhigay, cid waxayn ka dhaamidnaba jira, cidnana ka ay toogi mayso, cidnana taa ka dhulkeeda ka mid ah oo aanu mataqaanaa bahalka la yidhaha ay ka yaboosanayso ama u dhaafayso ama u daynaysa ma jirto. madaxda Soomaaliyeed waxaanu aad iyo aad ugu taariyeynaa sidii ay u hadleen iyo si ka sii fiican inay una hadlaan qarannimada Soomaaliya iyo ciidda iyo bad hadday iyo bir hadday tahay ay u difaacaan. annaguna ku garab taaganna haddaanu shacab nahay.
haddii xaaladda labada dal aanay ka soo reernin qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaabi waxay wadnaha farta ku hayaan inay noqdaan waxa ugu horreeya ee Kenya ku ciqaabto Soomaaliya laguna qasbo inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. Waxaa annaga waxaan ognahay oo maqashsanay in Kenya ay mataqaanaa Soomaaliya ku beer laxawsanayso. Soomaaliya waxaan hayaa dadkaagii qaxoontinimo ku hayaa 30 sano ay dhulkayga joogeen. beer laxawsi noocaas inuu jiro oo hadda dawladda federaalka Soomaaliya ka jirta ay ku beer laxawsanayso taa waxaan leenahay ma ogolin Kenya haddii ay mataqaana ay ka soo dhamaato inay dhulkayga qaadato annaga dhulkeeda ka tagayna la jooga soo afjarayna dhulkanagii baanu aadaynaa waxay nagu yeelanaysaa annagu horta dad qaxootiyahaanu nahay qaxootiguna adduunyada dhan buu ka jiraa meel kastuu ka jiraa dawladna waa lala dagaalamo dadka waa magan gelisaa haddii magan gelisana waxaan qabaa in annaga lagu dulgoodiyo inay noo bannaanayn annagu waa ka xunahay arrintaas in mataqaanaa Soomaaliya iyo Kenya isqabsato ama isqabsadaan waanu ka xunahay dawladda Kenya waxaanu leenahay qaxooti baanu nahay waana magan geliseen hanugu noqonina Soomaalidu waxay ku maamulaa baalka daanyeerka la yiraahdo caruurtiisa ay tadhargiyo iyo markuu dhargiyo cunaha qabtaa markaasuu ka soo matajiya wuxuu siiyay abaalkii aanu idiin hayniyo dawladooyinta aan soo dhaweyseen dawladda Kenya hanugu abaalka dhicine naga daayo goodiga iyo dulgoodigo mataqaanaa sidii aad noo magan geliseen oo noo soo dhaweyseen noo daaya haddii dhahaan macnaha ka guura oo macnaha waddankan hooyan la celinaya annaga reedi oo nahay diyaar u nahay waxaan diyaar u nahay inaan wax ka qabsano aan beeraheena iska dabcano dhulkan wax soo saarano badteena ilaalsano dhulkan shidaalka qodano everything macnaha aan waddankeena uu noo yaala dibad wax ay noo ismalo Kenya wax ay noo ismalo dhulkanaga hooyo wax nagu wanaagsan malo annagu waddanka anaga colaad baa naga soo kaxaysay dhibaata naga soo iriday dhibaatadana wali way ka taagan tahay laakiin haddii ay noqoto faaro baa lagu gelinayo waa guuri haday noqoto oo ay xoog noqoto dalka anaga hooyaan joognaa anagu waxaan noo jirtaa waatan waxaan 90 kiiloomitir aan dhanay baan noo jirtaa waa tagayna dalka anaga dantaa nagu qasbaysa inaan dalka anaga tagno Kenya waa dawlad ilaa ku caalami oo jirto dalkeedana iyada u madax bannaan soo ma garan annaga martibaan ku joogno martinimaan ku joogno oo shalba ay nagu ogolaatay maanta haddii martinimadii ay tiriyaalku idin ma ogoli haddii nin maanta ila ku qasbi kara ma laha nin ku qasbi kara ma laha taa iyada laakiin kama filayno oo madaxdii sharafta lahayd shalayna soo dhaweysay haddana dalkay ku sugan tahay dawladda Kenya waxay haysaa qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed oo ku kala nool xeryaha Dadaab, Kakuma iyo waliba magaalada Nairobi ilaa haddana dawladda Kenya ma qaadin wax tallaabo ka dhana qaxootiga dadka saadaaliya siyaasadda gobolkana Kenya kama filayaan inay wax xadgudub ku samayso qaxootiga muddada dheer ku noolaa dalkeeda si kasta oo u xumaado xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Axmed Abdullaahi Jaamac Axmed Deere Maakhir Cable TV xeryaha Dadaab.